Assalaamu calaykum. Soo dhawaada asxaabta. Waa qaybtii labaad ee barnaamijka taxanaha noo ahaa ee xogmaal. Waan ku eegaynay qaar ka mid ah ragii soo maray xukunka dowladaha qarniyadii dambe, kuwaas oo geystay xasuuq ba'an. Waxaanu qaybtan ku soo qaadan doonaa 3 nin oo lagu magacaabo Joseph Stalin, Philip Imbeller iyo Pol Pot. Fadlan haddaa kanaalkan ku cusub tahay, like iyo subscribe saar. Mahadsanid. Joseph Stalin wuxuu kaliya ka ahaa Midowgii Soviyeeti laga soo bilaabo sanadii 1922 ilaa dhimashadiisii 1953. Ku dhawaad 30 sano wuxuu ka talin jiray argagax iyo rabshad Midowgii Soviyeeti. Go'aamadiisii waxay keeneen macaluul dishay malaayiin, cadawgii la iskaga iloobay. Wuxuu xitaa laayay qoysaskii dadka isaga u jeclaa. Intii uu xukunka hayay Joseph Stalin intii uu xukunka hayay in ka badan 1.5 milyan oo haween Jarmal ah ayaa la duugay dhammaantood. Wuxuu si fudud u dilay in ka badan 20 milyan oo qof. Joseph Stalin wuxuu mar yiri, hal dhimasho waa musiibo, balse 1 milyan oo dhimasho ah waa si fudud oo tirokoob ah. Ninka saddexaad oo lagu magacaabo Philip Imbeller waxa sidoo kale loo yaqaanay Philip Darkula. Dabeecadda Darkula si dabacsan ayaa loogu saleeyay Philip sababo la xiriira shakhsiyadiisa murugada leh iyo ficilada naxariis darrada ah ee loo geystay dadka reer Wallachia. Halka uu ka talin jiray xilliyadii amiirnimada intii u dhaxaysay sanadii 1448 ilaa 1462, wuxuuna dilay qiyaastii 20% dadweynaha reer Wallachia. Wuxuu ku daldalay dhibanayaasha intooda badan xarig. Buug Jarmal ah ayaa qoray geesiyaal badan hooyooyinkood uu naasaha ka jaray, kadibna uu raggooda ku amray in ay cunaan, kadibna dhammaantood uu isku halka ayuuna ku laayay. Ninka afraad asna waxaa lagu magacaabaa ayaan xogtan ku soo qaadanayno Pol Pot. 1925 ilaa 1998 wuxuu ahaa hogaamiyaha kooxda Cambodia ee kacaanka Khaybar Ragu, kaas oo abaabulay xasuuqii Cambodia. Isaga ayaa laga yaabaa inuu yahay qofka kaliya ee taariikhda ah ee amar ku bixiyay xasuuq baaxad leh dadkiisa. Intii uu xukumayay jagada ra'iisul wasaaraha intii u dhaxaysay 1976 ilaa 1979, siyaasadiisu waxay horseeday geerida ku dhawaad 2 milyan oo qof, taas oo ahayd 25% dadweynaha oo dhan. Wuxuu jeclaa inuu ilaaliyo dekada qolofta dadkii uu laayay. Sidoo kale wuxuu amray in dhallaanka laga jaro aadimaha. Ugu dambeyn, Pol Pot wuxuu dhintay sabab dabiici ah. Haddaba dhageystayaal, qaybtii labaad ee barnaamijkan xogmaal inta ayuu ku egyahay. Mahadsanidin.